kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa Sam Films Production. Alaaba halkan waxa aan soo gelinaa warbixino aan uga hadlayno arrimaha bulshada iyo sidoo kale heesaha kala duwan ee qaadaan Soomaalida, balse warbixinteenan maanta waxaan ku eegaynaa jacaylkii weynaanta ku cabsaday jilaaga weyn ee aflaanta Bollywood-ka loo yaqaan magaciisa Salman Khan ee dadka aad u jecel yihiin ayaa beeniyay warar sheegayay in xaas iyo gabar 17 sano jir ah ay u joogaan dalka isu tagay Imaaraadka Carabta halkaas oo ay ku nool yihiin. warar lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa lagu sheegay in jilaagan caanka Salman Khan uu qarinayo haweeney lagu magacaabo Nuuro iyo gabar kale oo 17 sano jir ah oo kuwaas oo la sheegay in ay ku nool yihiin magaalada Dubai ee isu tagay Imaaraadka Carabta halkaas oo nolol wadaag ay ku yihiin. jilaagan ayaa su'aal la xiriirta arrinta qoyska laga weydiiyay barnaamijka Brinchi 2 oo daadiyaha ka yahay walaalkiisa Arbaas Khan. Salman Khan ayaa lagu casuumay barnaamijkaasi si uu uga jawaabo fariimo ay dadweynaha u soo mariyeen dhanka baraha bulshada. jawaabtaas inta badan shacabka iyo dadweynaha ku dhaqan dalka Hindiya ay siyaabo kala duwan u fasirteen, walow markii dambe si weyn looga qanciyay jilaagan ku caanka in uu qiiro geliyo lamaanayaasha iyo dadka jacaylka weyn uu ka dhaxeeyo ayaa mid ka mid ah fariimaha la wadaagay jilaaga loo dhigay sida tan. waxaa lagu yiri halkee ayaad ku dhuumanaysaa fuloyahow, Hindiya oo dhan way ku ogtahay in aad Dubai la joogto xaaskaaga iyo gabadhaada 17 sano jirka ah. ilaa intee ayaad qorsheynaysaa in aad been noo sheegtid ayaa lagu fariin loo soo dhigay baraha bulshada. isla markii uu Salman Khan maqlay su'aashaasi waxa uu yiri dadkan waxaan filayaa in ay si fiican u og yihiin waxaan oo dhan waa been, ma garanayo cidda ay ka hadlayaan iyo meelaha lagu soo qorayaba ayuu yiri Salman Khan oo dadka inta badan ay u yaqaanaan xidiga jacaylka marka laga reebo xidiga badan oo ka tirsan dalkaasi Hindiya oo iyagana jacaylka dhanka aflaanta wax weyn ka yaqaana. walaal aniga xaas malihi, waxa aan ku noolahay Hindiya dhismaha Galaxy tan iyo markaan 9 sano jir ahaa. uma jawaabayo qofkan oo kaliya, Hindiya oo dhan way ogtahay meesha aan ku noolahay ayuu ku jawaabay Salman Khan oo su'aalo badan laga weydiiyay arrintaasi. haddaba daawadayaal maxay tahay sababta uu guursan la yahay jilaaga caanka ah ee Salman Khan oo inta badan dadku ay u yaqaanaan nin jilista aad wax uga yaqaana, isla markaana marka uu filmaanta uu ku dhex jiro indhihiisa ay ka muuqato ilin badan, walow taasi ay tahay jiliin oo kaliya. waxaa dad badan oo daawada aflaanta Hindiya aan ka qarsoomaynin in jilaaga caanka ee Salman Khan uusan guursanin weligiis. Salman Khan oo da'diisu ay tahay 53 sano jir loogana bartay aflaanta Hindiga ee jacaylka iyo dagaalka ku salaysan ayaa su'aasha ugu badan ee la weydiiyay noloshiisa waxaa la sheegay in ay ahayd sababta uu guursan waayay. waxaana marar badan su'aashaasi weydiiyay warbaahinta dalka Hindiya oo in muddo doonayay in ay ogaadaan waxa jilaagan ku kalifay inuusan ku dhiiranin inuu guursado oo noloshiisa lamaana ay ku soo biirto, walow xan hoose ay jirtay uu beeniyay isaga. Salman Khan oo dhowr jeer la weydiiyay sababta uu guursan la yahay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, isagoona hore u sheegay in sababta uu guursan la yahay ay tahay dhaqaalaha guurka ku baxa oo ka badan intii ay ku guursan jireen dadkii hore sida uu aaminsan yahay. hase yeeshee jawaabtaas ayay dad badan u arkeen in Salman Khan uu isaga jeedinayo indhaha shacabka iyo taageerayaashiisa maadaama uu jilaagu ka mid yahay jilaayaasha ugu hantida badan dalkaas Hindiya ayna san jirin sabab ku kalifi karta in dhaqaale la'aan uu guursan waayo. Salman Khan oo lagu tiriyo xidigaha ugu hantida badan dalka Hindiya ee dhanka Bollywood-ka ku jira, balse warbaahinta dalkaasi Hindiya ayaa maalmihii la soo dhaafay hadal hayay xog hoose oo ay ka heleen qoyska Salman Khan. mid ka mid ah qaar ka mid ah warbaahinta dalka Hindiya oo soo xiganaya qof ka mid ah qoyska Salman Khan ayaa waxa ay sheegeen in Salman Khan uusan doonaynin in uu qoyskiisa uu ka fogaado ama uu qof kale oo lamaantiisa uu ku soo lamaanayo noloshiisa, taasoo buuq badan ka dhalinaysa reerka dhexdiisa sida uu qofkaasi u sheegay warbaahinta. Salman Khan waxa aad loogu yaqaanaa qadarinta uu hayo qoyskiisa. dhowr jeer oo hore ayuu isku dayay inuu guursado, waxa ay la noqon weyday in ay fursad la noolaansho uu siiyo qof kale oo aan ahayn qoyskiisa, taasina ay tahay sababta uu guursan la yahay Salman Khan. sidaasi waxa qaar ka mid ah warbaahinta dalka Hindiya u sheegay qof ka mid ah qoyskiisa Salman Khan. sanadihii dambe waxa soo baxayay warar aan la xaqiijin oo sheegayay
in Salmaan Khan uu doonayo in uu guursado gabdho ay ka mid yihiin Katrina Kaif iyo Leila, balse wararkaasi ayaa noqday kuwo xan ah oo kaliya oo aysan waxba ka suurtagelin oo been ah. waxaana qoyska Salmaan Khan la sheegay in mar walba ay ku boorinayaan in uu guursado ama ay ku dhiirinayaan inuu guursado, balse isaga uu go'aankaasi u qaatay in uusan qof kale noloshiisa ku soo biirin. qoyska ayaa waxay mar walba doonayeen in Salmaan Khan uu guursado qaar ka mid ah gabdhaha ugu caansan dalkaasi, balse dantiisa shakhsiga ah waxa uu mar walba ka hormariyaa tan qoyskiisa, waxaana uu jecel yahay in uu la noolaado qoyskiisa ayna noqdaan qoys boqortooyo, ayuu raaciyay qof ka mid ah ehelka Salmaan Khan oo la hadlay warbaahinta. Salmaan Khan oo dad badan u arkaan in uu sii duqoobayo marka loo eego da'diisa ayaanan wax reer ah yeelanin weligiis. arrintan oo dad badan ay ka fajiceen maadaama qaar ka mid ah carruurta jilayaashii ay isku waqtiga ahaayeen Salmaan Khan ay durbo ku soo biireen jilista aflaanta oo isaga xitaa qaarkood ay la soo muuqdeen, qaarna uu u yahay indho. Salmaan Khan oo uu dhalay jilaaga caanka ah ee Saleem Khan ayaa shirkadda Bollywood-ka ku soo biiray horaantii 90-meeyadii, waxaana uu tan iyo xilligaasi uu jilay in ka badan 100 filin oo dhaqaale badan ka sameeyay. hantida uu haysto ayaa waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad $3 milyan oo dollar. qaar ka mid ah hay'adaha falanqeeya arrimaha filimada ayaa Salmaan Khan ku tilmaamay inuu yahay jilaagii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida, inkastoo kuwa kale ay dood ka keeneen arrintaasi ayna barbar dhigeen jilaaga kale ee lagu magacaabo Shahrukh Khan oo isna inta badan lagu yaqaano jilista aflaan aad u soo jiidasho badan oo dhanka jacaylka iyaguna ka hadlaya, waxaana uu jilaagaasi uu isna caan ku yahay dhanka jacaylka iyo soo jiidashada gabdhaha. gabdho badan oo filimaanta la keenay labadan actor ayaa waxay aaminsan yihiin in labadan actor ay yihiin kuwa ugu qaalisan dalka Hindiya, gaar ahaan dhanka Bollywood-ka, waxaana sheegeen in dhanka jacaylka ay ku yihiin aabayaasha jacaylka.